بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إلهي بمهد إسكال ولا الذي دقالي أصحابتي إذا شرفت له مركز الدنيا كجوكتان. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. walaalkayga qaaliga ah oo adduunyada aynu ku noolnahay xayaato dhow ayaa lagu tilmaamaa, nolol abadiya ma lahan. xayaatada nolosha aan ku jirno waa xayaato aad iyo aad u qariib ah waaye. nolosha dhabta ah way kaa dambaysaa. allah subxaanahu wa tacaala aayado fara badan buu ku sheegay, salawaatullaahi wasalaamu calayhin, axaadiis badan buu ku sheegay. walaalkayga qaaliga ah waxaan rabaa inaan kula wadaago qiso yar oo cajiib ah. nabiyullaahi yacquub calayhi salaam waxaa u iman jiray soo booqan jiray malakul mowt. sida caadiga ah ambiyada, malaa'igta iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala malagyadiisa way soo booqan jireen. wuu soo booqan jiray, wuu la sheekaysan jiray, wuu iska tegi jiray. maalin maalmaha ka mida nabiyullaahi yacquub calayhi salaam ayuu wuxuu malakul mowtkii ku yidhi: yaa malakul mowt, innii as'aluka xaajaan ku weydiisanayaa, amuur baan ku weydiisanayaa, favor ii samey buu ku yidhi, maadaama aad mar walba ii timaado saaxiibkayga tahay. tuclinunii idaa xadara awaanu ajali, waxaan kaa codsanayaa buu yidhi inaad ii sheegto xilliga muddadayda ay soo dhowaato oo waqtigayga uu geli doono oo aan dhima raba inaad ii sheegto. subxaana allahi casa wajal, allahu akbar. favor buu malakumood weydiisanayaa, wuxuuna weydiisanayaa xilliguu dhiman lahaa inuu usii sheega. subxaana allahi casa wajal. malakul mowtkii muxuu ku yidhi: yaa yacquub, sa ursilu ilayka rasuulayni aw halaatha. yacquubow, waxaan kuu soo diri doonaa buu yidhi 2 fariin ama 3 fariin intuuna waqtigaaga gelin. muddaa ka soo wareegtay, sidii ku kala tageen, maadaama uu soo booqan jiray maalin maalmaha ka mid haddana soo booqday. subxaana allahi casa wajal. nabiyullaahi yacquub baa malakul mowtka wuxuu ku yidhi: yaa malakul mowt, azaa'irun ji'ta am liqabdi ruuxii. sida caadiga aa ii soo booqan jirtay maa ii soo booqato oo igu timaaday, mase maanta qamuudkayga galuu dhahay. maanta wuxuu dhahay cajalkaygii maa soo xirxirmay, mase sidaa igu soo booqan jirtaa igu timaaday. subxaana allahi casa wajal, allahu akbar. malakul mowtkii baa wuxuu ku yidhi: yaa yacquub, liqalbi ruuxik, maanta waxaan u socdaa buu yidhi tan yar inaan kaa qaado. maanta ruuxaagaa la iisoo diray buu yidhi. subxaana allahi casa wajal. nabiyullaahi yacquub calayhi salaam ballan horaa ninkan u dhexaysay, ballantina ma dareensana in loo soo diray in kale. wuxuu tuhunsan yahay ballamihii inayna soo gaarin. malag inuu ballan kaaga baxana wax qariib ah waay. subxaana allahi casa wajal. nabiyullaahi yacquub markaas wuxuu ku yidhi: amaa wacadtanii annaka satursilu ilaya rasuulayni aw halaatha. soo ima aadan ballan qaadin inaad ii soo diraysa 2 fariin ama 3 fariin, maxaa kugu dhacay? waaba iska timaaday adigoo ruuxayga raadinaya, fariimihiina aawe. malakul mowtkii ayaa wuxuu ku yidhi: yaa yacquub, innii qad facaltu daalik. yacquubow, ballantii waan fuliyey buu yidhi, fariimihiina waan kuu soo diray. bayaadu shacrika bacda sawaadih, tintaada madoobeyd markay madowgii intay ka tagtay ee ciro isu bedeshay, fariintii ugu horreysaan kuu soo diray buu yidhi yacquub. subxaana allahi casa wajal. wa dicfi badanika bacda quwatih, jirkaagii aad adkaa, xoogga ahaa ee aad 5 geed ka boodi jirtay, markuu la ciifay fariintii labaadaan kuu soo diray buu yidhi. subxaana allahi casa wajal. subxaana allah, subxaana allah. وانحلاء جسمك قبل استقامته. سبحان الله. وانحلاء جسمك بعد استقامته. jirkaagii toosnaa markuu soo gutay, oo sida hangoolkaad u soo godatay qofka markuu waayeelo wuu soo gutaa, fariintii 3aadaan kuu soo diray buu yidhi. subxaana allahi casa wajal. yaa yacquub, haadihi rusulii ilaa bani aadama qabla almowt. fariimahan insaanka u soo diray, bani aadamka aan u soo diray intaanan ruuxa ka soo qaadin way yiri 3dan. subxaana allahi casa wajal. walaalkayow, hinti baa lagu siiyey, micnaha waxaa lagu siiyey qashaa lagu siiyey. qashaa lagu siiyey bayaadu shacrika bacda sawaadih,
tintaadu hadday soo madoobaad muddo aad noolayd oo ciro ay soo noqoto oo ciradu weliba mar la rabo ciro kaaga soo baxaysa 9 sanadoo jira 10 sanadoo jira ciradee waqtigeeda maasha allah alla ku keenay tan kale cirada qofka inay kasoo baxdo waa bishaaro waa subxaanallah xadiis salawaatullaahi wasalaamu calayhi uu leeyahay jira man shayba fi lislaami qofka asoo islaama ciro kaga soo baxa islaamnimada qiyaamaha nuuray u noqotaa tinta cirada subxaanallahi caza wajal hada ilaahay subxaana watacaala fadligiisa waaye qofka markii dhallinyaranimadii intuu ka gudbo kontameyada uu gala jirka uu soo yara hajjacis wadad ku socotaa subxaanallah safarkaaga waa dhow yahay haddaad soo gadato oo dee markii hore nin iska boodaya socdaad ahayda bakoorad intaad soo qaadato dee ay noqoto ushaadis lugtaadii saddexaad hadde waa lagu soo hayaa maasha allahu tacaala caafimaad kastaba aad qabtid haddaad doonto laakiin qisadan waxaan kugu soo tabiyey baraarug subxaana allahi caza wajalla waana sheeko dhex martay nabiyullaahi yacquub iyo malakulmowt walaalkayga khaaliga ahoo malakulmowt saddexdaas ayuu usoo diraa farin dadka bayaadu shacridika bacda sawaadih وضع في بدنك بعد قوته وانحلاء جسمك بعد استقامته هذا هو رسولي يا يعقوب إلى بني آدم قبل الموت ولكن إن شاء الله تعالى قفك مسلم فحلوك باهي أن يكون مسلما في كل لحظة وفي كل ساعة وفي كل دقيقة سبحان الله عز وجل متى يأتي ملك الموت ذاك قيب عند الله سبحان الله عز وجل تاس إلهي بأوك لكن wuxuu kaaga dhow yahay malakul mowta min shiraaki naclatika subxaana allah kabtaada halka ay suulka ka hayso dacaskaaga labada suul meesha aad geliso iyo kabta intay isu jiraan malakul mowtka kaaga dhow yahay subxaana allahi caza wajalla walaalkayo naftayda iyo naftaada waxaan ku baraarujinayaa salawaatullaahi wasalaamu calayhi xadiidkiisa ahaa tadakkaruu haadi min ladaat xasuusta oo xasuusta macaan kala gooyaha xasuustiisa badiya macaan kala gooyaha waa malakul mowtka hooyo iyo wiilkeed wiil iyo aabihiis xaas iyo ninkeed gabadh iyo walaad ninkeedi macaan kala gooye waaye xasuustiisa badiya xasuustiisa haddaad badiso insha allah waxba kaama qaldamaayo ilaahay ma caasin doontid subxaana allah ummadana way kaa nabadgeli doontaa subxaana allahi caza wajalla bacdabaa maanta dunida ku nool societygeena iyo bulshadeena aad wallaahi qofka aadaman arkayninba aad islahaynba qofkan geeri baaba ka dambaysa subxaana allahi caza wajalla geerida haba kugu timaadee maxaa kaasii horeeya nolol xayaato ah oo abadiye ah oo aanan weligeed dhammaanaynin laa tantahi subxaana allah way bilaabanaysaa mana dhammaanayso axadu saalixiin waxaa laga sheegay inuu leeyahay low annanaa mitnaa wastarixnaa lakaana khayran lana walaakinaa idaa mitnaa bucithnaa wa idaa bucithnaa xuusibnaa wa idaa xuusibnaa imaa fi ljannati wa imaa fi nnaar war haddaynu iska dhiman lahayn oo nala xabaali lahaa oo filinkeenaba saa uu ku dhammaan lahaa ku burburi lahaa khayr baan taagnaan lahayn buu leeyahay ninka saalixa ah laakiin haddaynu dhimanno waana la xabaalo waana la soo bixinayaa mabcuuth bucithnaa waana la soo saarayaa wa idaa bucithnaa xuusibnaa markiina la soo saarana waana la xisaabayaa buu leeyahay subxaana allahi caza wajalla oo xisaab ka dambe maxaa dhacaya imaa fi ljannati wa imaa fi nnaar subxaana allahi caza wajalla subxaana allah tanbiihaad cajiib ah qofka iimaan leh oo ilaahay subxaana watacaala iimaan rabbi u hubeeyey dhegaysta qisooyinka yaryar iyo xadiidtan u dhegaysta subxaana allah inshaa allahu adiga ay ku anfacaysaa walaalaha kale aad gudbisan way anfacaysaa allah yaxfadak wayxibak wayarcaak alla dartii ayaan kuu jecelahay waqtigiigana kuugula qaatay fariintii aniga waan kusoo gudbiyey alla isoo gaarsiiyey adigana saaxiibadaa la gaarsiiyey adoo ka duulaya xadiidka salawaatullaahi wasalaamu calayhi uu yidhi ballaqii canii walow aaya balliquu canii walow aaya aayadna allah ka dhigay ummaddan wuxuu iga gaarsiiyey bal wax kuu socon doona ilaa qiyaami saaca inta kelibka uu wareegay ajirkiisa aad heli doonto insha allah walaaladaa kala la wadaag allah yaxfadak wayxibak wayarcaak waa walaalka oo hawada kaasoo salaamaya ilaahay dartii kuu jecel inta kugu jirta facebooka kelibkani gaarsii laga yaaba mid khaafila inuu ku baraarugo laga yaaba mid masaakiina inuu cilmi ka dhaxlo laga yaaba mid jaahila insha allah subxaana ilaahay inuu cilmi ku siiyo adigana ajirkeeda iyo sawaabteedaa leedahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaan hawada dib kaala kulmaayo kelibyo badanoo noocanna waan kuusoo gudbin doonaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh